السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaal cusub. nin ayaa u soo galay xaaskiisii salaada cishaay kadib wuxuuna arkay carruurtiisii oo seexday. wuxuu weydiiyey haweenaydiisii, carruurtu ma tukadeen? waxay tidhi cunto ayaan oolin oo waan seexiyey. wuxuu yidhi toosi. waxay tidhi haddii aan toosiyo way ooyayaan gaajada haysa awgeed, wax aynu siinana ma yaallaan. wuxuu yidhi dhegayso, korkayga waxa saaran inaan fara salaada, risiqoodana ilaahay ayaa haya, ee toosi oo far salaada. waa ka ilaahay yidhi wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquk. far ehelkaaga salaada kuna sabir, kuma weydiinayno arsaaq, annaga ayaa ku arsaaqaynaa. haweenaydii way toosisay carruurtii. markii ay salaaddii dhammaysteen waaba albaabkii guriga oo la garaacayo. way fureen. waaba mid ka mid a raggii ugu hodansanaa magaalada oo sida xeedho ay ku jiraan nooc walba oo cuntooyinka ugu macaan ah. wuxuuna yidhi hoo ehelkaaga sii. wuxuu ku yidhi waa maxay arrinkaagu? wuxuu yidhi waxaa ii yimi mid ka mid a ragga ugu sharafta badan waddanka, cuntadanna isaga ayaan u diyaariyey, balse intii aanu cuntada cunin ka hor ayaannu yar murannay. wuxuuna ku dhaartay inaanu cuntada cunin, wuuna baxay. kadib waan soo qaaday cuntadii, waxaanan idhi waxaan siin doonaa cidda ku jirta albaabka ugu horreeya ee lugahaygu istaagaan. ilaahay baan ku dhaartay ma garanayo waxaa ii kaa keenay.